waxaan rabaa inaan halkan kula wadaago bulshooyinka reer Kismaayo bilahan waxaa socotay sugidda amniga ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland oo maalmahan dardar gelin ku waday sugitaanka amniga guud ahaan magaalada Kismaayo xaaladda amniga ayaa dardar gelin lagu wadaa oo waxaa socda howlgallo lagu xaqiijinayo amniga taas oo guud ahaan magaalada xaafadaheeda iyo banaankaba uu ka socdo waxa Ilaahay mahadiisa hawshi way socotaa wayna socon doontaa waxaan codsanaynaa bulshada reer Kismaayo ama reer Jubbaland aan ka codsanaynaa in si buuxdo oo hagarli ah oo la shaqeeyaan ciidamada booliiska ee dowlad goboleedka Jubbaland si looga hortago ama looga daba tago dhagarqabayaasha ururka argagixisada ee Al-Shabaab waxa Ilaahay mahadiisa operationadan way socon doonaan muddayna socon doonaan waqti kuma cayina way socon doonaan waxaanan howlgalkaasi loogu talagalay in lagu sugo amniga magaalada Kismaayo gudaheeda iyo banaankeeda reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan booliiska dowlad goboleedka Jubbaland si gacanta loogu dhigo ama looga nadiifiyo cadawga dhagarqabayaasha argagixisada Al-Shabaab waxaan kaloo aan rabaa in aan la wadaago bulshooyinka in ay si toos ah laamaha amniga ay oo la shaqeeyaan dowlad goboleedka Jubbaland sida wasaaradda amniga taliska ciidanka booliiska iyo wasaaradaha kale ee ku hawlan sugidda amniga insha Allah ballanteenu waxa weeye shaqo iyo sidii amniga iyo xasiloonida iyo nabadda looga shaqeyn lahaa gobolka ama guud ahaan Soomaaliya gudaheeda laakiin hadda shaqada Kismaayo gudaheeda ka socoto waa dardargelin la rabo in lagu xaqiijiyo amniga guud iyo kan gaar ahaaneed ee magaalada Kismaayo